dowladda Itoobiya ayaa shuruudo ku xirtay jaadka dalka dibadiisa loo iibgeeyo meelaha ay shuruudahan sida tooska u saameyn doonaan waxaa ka mid ah Somaliland iyo Djibouti oo iyagu loo dhoofiyo qaadka ka soo go'o dalka Itoobiya. Wariyayga muraha dhaqaalaha Fattaax Mursal ayaa mar kale faafahinta warbixintan soo diray. wasaaradda ganacsiga iyo isdhexgalka gobolada ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in aan la aqbali doonin in qaab sharci darro ah qaadka lagaga dhoofiyo dalka Itoobiya. dhoofiyayaasha qaadku waa inay soo bandhigaan qandaraasyada iibsashada ka hor inta aan loo ogolaanin in ay u diraan dibadda. sidaa waxaa yidhi Gabramaskas Jala, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo isdhexgalka gobolada ee Itoobiya. wasiirka ayaa sheegay in ganacsiga sharci darrada ah ee qaadka oo sii kordhaya aan la aqbali doonin isla markaana tallaabo laga qaadi doono ciddii u hoggaansami weyda sharciga. wasiirka iyo saraakiisha kale ayaa soo jeediyey in la soo bandhigo hababka dhoofinta ee qaadka. toddobaad ka hor go'aan lagu soo rogay sharciyo adag. khubaradu waxay aqoonsadeen boqolaal dhoofiyayaal ah oo looga shakisan yahay inay ku dhaqmaan qaansheegta ama warqadda ay ku qoran tahay lacagta iibsashadu ama qandaraasku waa si khaldan oo ka turjumaysa qiimaha badeecadaha ama adeegyada loogu talagalay in lagu kala wareejiyo qiimo dheeraad ah oo u dhexeeya dhoofiyaha iyo iibsadayaasha dibadda, ayaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda ganacsiga iyo isdhexgalka gobolada ee dalka Itoobiya. caddaynta lacagta dhoofintu waa mid ka mid ah hababka ugu badan ee ganacsiga ku salaysan ee loo isticmaalo in agabka lagu raro marka qiimahooda saxda ah la ogaado, taas oo sahlaysa cashuurta looga baahan yahay. tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkan 2014 tirsiga taariikhda Itoobiya, wasiirka iyo saraakiishiisu waxay ku boorinayeen ganacsatada qaadka dhoofisa inay ka waantoobaan dhaqankaas, iyagoo ku hanjabay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan ciddii u hoggaansami weyda sharciga cusub. 2 toddobaad ka hor mas'uuliyiintu waxay shatiga ama liisanka ganacsiga kala noqdeen 830 ka mid ah ganacsatada qaadka dhoofisa kadib markii baaritaano lagu sameeyey lagu ogaaday in ay sharciga garab mareen. dhoofiyayaasha ayaa laga filayaa inay soo gudbiyaan biilka sarifka. amar ku meel gaadh ah oo loo isticmaalo ganacsiga caalamiga ah ayaa loo baahan yahay inay raacaan iyadoo loo eegayo shuruudaha cusub ee ay soo saartay wasaaraddu. waa lagama maarmaan in la hubiyo in dalku uu soo saaro lacag qalaad, ayuu yidhi Masfin Ababe, agaasimaha dhoofinta iyo suuqgeynta beeraha ee wasaaradda ganacsiga Itoobiya. khubarada dhaqaalaha ee dalka Itoobiya ayaa ka digaya inay tani noqon doonto tallaabo niyad jab ku noqon doonta dhoofinta ganacsiga, gaar ahaan qaadka. Aadane Tufa oo ah dhaqaalayahan xubinna ka ah bulshada dhaqaalaha beeraha ee Itoobiya ayaa saadaaliyey in sharciga adag ee lagu soo rogay dhoofinta ay niyad jabin karaan dhoofiyayaasha. tani waxay si weyn u saameyn doontaa soo saarista lacagaha qalaad, ayuu yidhi. qaadku waxa uu ka mid yahay 5 badeecadood ee dakhli soo saarka ugu sarreeya dalka Itoobiya laga soo bilaabo horraanta sanadkii 2000. waxay ka dhigan tahay 11% 3.6 bilyan oo dollar oo laga soo saaray sanadkii hore qaadka Itoobiya ay dhoofiso. saraakiisha ayaa sanadkan isha ku haya 413 milyan oo dollar oo la qorsheeyey in laga helo dhoofinta qaadka 2022. wax ka yar kala bar ayaa la soo saaray 8 bilood ee ugu horreeyay sanad xisaabeedka ku dhowaad 10,000 oo dhoofiye ah oo ka diiwaan gashan heer federaal. dalagan qaadka ee ay ka soo baxdo lacagta caddaankii waxa uu ka mid yahay badeecadaha beeraha ee ka kooban 70% dhammaan dakhliga ka soo baxa wax dhoofinta dalka Itoobiya, isaga oo qaadku daba socda qaxwaha iyo ubaxyada oo ay Itoobiya aad u dhoofiso, lacag adagna ka soo saarto. ku dhowaad rubuc ka mid ah qaadka ka soo go'a Itoobiya ayaa loo dhoofiyaa Djibouti iyo Soomaaliya. macaamiisha dalalkani waxay iibsadeen sanadkii hore 710,000 oo kiintaal oo qaad ah, iyadoo ku dhowaad 80% ay aadi jireen Djibouti iyo Soomaaliya. bishii la soo dhaafay wasaaradda ganacsigu waxay laba jibaartay qiimaha qaadka loo dhoofiyo Soomaaliya, waxaana ka dhigtay $10 halka kiilo, halka qaadka Djibouti loo dhoofin jirayna uu dhan yahay ama qiimihiisu uu yahay kiiloogiiba $4. arrintan ayaa laga yaabaa inay ku riixday Soomaaliya inay xuduudaheeda u furto dhoofiyayaasha Kenya 6 sano kadib markii ay xukuumaddii hore mamnuucday qaadka Soomaaliya uga iman jiray Kenya. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa toddobaadkii hore ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, halkaas oo uu kaga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaanay heshiis ku gaadheen in dib loo bilaabo qaadka laga soo dhoofiyo dalka Kenya. dadka qaadka ka dhoofiya Itoobiya ayaa hadda laga rabaa in ay iska diiwaangeliyaan wasaaradda ganacsiga iyo isdhexgalka gobolada ee federaalka Itoobiya. Masfi waxa uu sheegay inay wasaaraddu doonayso inay si dhow la socoto dhaqdhaqaaqa dhoofiyayaasha qaadka. markii hore baanka qaranka Itoobiya ayaa loo igmaday inuu bixiyo ogolaanshaha dhoofinta jaadka, hase yeeshee hadda wasaaradda ayaa hawsha gudan doonta. Saciid Cali oo ah maareeyaha guud ee shirkadda Fami oo ka mid ah shirkadaha ka shaqeysa dhoofinta iyo wax soo dejinta, waxa ay shirkadiisu dhoofinaysa qaadka ilaa 2004 iyadoo u dhoofin jirtay Djibouti, Soomaaliya iyo Australia. toddobaadkii hore waxa uu tagay Addis Ababa isagoo ka tagay Diridhaba si uu u soo cusboonaysiisto sharcigiisa. inkastoo uu jiro suuq lagu iibiyo qaadka,
soo saarista lacagta qalaad oo ka sarreysa xadka ayaa ahayd mid adag ayuu yidhi Said. Dhoofiyayaasha jaadka u dhoofiya wadamada aan Jabuuti iyo Soomaaliya ahayn waa in ay u soo xawilaan ugu yaraan $35 kiilihii ayaa ay sheegtay wasaaraddu. qaadka ayaa caan ka ah wadamada bariga Afrika iyo jasiiradda Carabta waxaana maalin walba cuna dad lagu qiyaasay ilaa 10 milyan oo qof. baahida sii kordhaysa ee isticmaalka qaadka ayaa beeralayda Itoobiya ku riixaysa inay u jeestaan beerista qaadka waxaana qaar badan oo ka mid iska daayeen beerista badarka iyo waxyaabaha kale. 10 sano ka hor 1.7 milyan oo beeralay ah ayaa beeray qaadka. tirada ayaana kor u kacday oo gaadhay 4.1 milyan sanadkii hore. wax soo saarka sanadlaha ah ayaa 3 jibaarmay in ka badan 3 milyan oo kiintaal isla muddadaas. halka dhulka lagu beeray qaadka ama uu ka soo go'o ay kor u kacday in ka badan 200 oo BC ilaa 340,000 oo hektar oo dhul ah ayaa lagu beeraa qaadka. dhoofiyayaal yar ayaa doonaya in ay u hoggaansamaan hababka cusub ee sharciga ah, ayuu Said. shirkadiisa Farm waxay ka mid tahay 300 oo shirkadood oo qaadka dhoofiya oo ka diiwaan gashan magaalada Diridaba oo ah xarun ganacsi. Diridaba ayaa 509 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaanay ku dhowdahay laba ka mid ah meelaha ugu badan ee loo dhoofiyo qaadka kuwaas oo kala ah Jabuuti iyo Somaliland iyo sidoo kale meelaha ugu horeeya ee qaadka laga beero dalka Itoobiya. Itoobiya ayaa hormuud u ah soo saarista qaadka iyadoo suunka koonfur bari uu daboolo inta badan beeraha qaadka. gobolka Oromiya ayaa dalka ugu horeeya wax soo saarka qaadka 1.3 milyan oo kiintaal ayaa sanadkii ka soo go'a waxaana ku xiga maamul goboleedka koonfur galbeed ee Itoobiya iyo Sidaama kuwaasoo mid waliba soo saaro 650,000 oo kiintaal sanadkii. marka loo eego waxyaabaha ay Itoobiya dhoofiso waxa qaadka ka horeeya bunka iyo ubaxyada. qaadkuna waxa uu ciriirsanayaa kaalinta saddexaad ee wax dhoofinta Itoobiya sida lagu sheegay warbixintan. waxa uu ka qayb qaataa soo saarista dhaqaalaha adag ee ay Itoobiya ka hesho waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso.